waxaa lagu haystaa sun baa lagu qooshayaa sun lagu qooshi ma imaqlaysaa maqaya Soomaaliya dalka Soomaaliland baale saasan ciidan waliga ha qaadi ilaahay baa awood baan iska ka saar ku gabraaratada gumaysigu wata gaalmada xumaanta geedkooda habbo anagu musabixi wax oran mayno waa waanan weeyay dadqara anagoo joogna xiriir daraawista magaalo kamid oo ka cad la yiraahdo oo taleex wastamaad anagoo joogna oo jamaahiirtii daarooda waxaanu faradeeda ku cadaynaa oo ka hadlina arrimaha ka jira Soomaaliya sanadii cayn number 2 waxaanu ka hadlaynaa qodobka ugu horeeya gudoomiyaha SLM la magacaabay Muuse Biixi qodobka labaad waxaan la hadlayaa reer Sheekh Isxaaq oo ka dhashay isimada waxgaradka garboodka culimada iyadoo qodobka labaad weey qodobka saddexaad waxaan la hadlayaa garaadada iyo sharafta leh iyo awqaashida sharafta leh iyo guddiga saddex sodonka iyo dhammaan jamaahiirta daarood waxaa ku maraya baan la hadlayaa qodobka afraad qodobka shanaad waxaan la hadlayaa nimanka horjoogaha weli xagga Soomaaliland eegaya oo anaga naga dhashay oo qodobka shanaad weey number 2 waxaan ku noqonayaa qodobka ugu horeeya Muuse Biixi iyo kuwa ma oranaya Muuse Biixi uu ku soo duulay meel soo shaqo ku lahayn xuduud oo Ingiriiskii gumaystaha gaalka ahaa oo maxaa ku dhacday calaamadiyay buu sheeganaya halka waxa ka muuqanaysa in iyagu kaba qaad waxaan jireen Muuse Biixi kaba qaad waxaan jireen Ingiriiska gaalka ahaa waligood Soomaaliya islaamku waa diidi jireen tiibuusan raacay Muuse Biixi hadalkii gaalka Ingiriiska wati raacay hadalka waxaan leeyahay ninka liya Muuse Biixi uu khaldan yahay hadalka ka baxo hadalkii gaalku xariiqda gaalku jeexay wuxuu shaqo u sugan yahay buu jeexay wadankana ma lahayn wadanka marka hore Soomaaliya baa leh marka xigana wadanka waxaa dadka degan hadda lagu haysto Soomaaliya sanadii cayn oo la baxay dhulbaante ama harti ama daarood baa wadanka iska leh xariiqdaas xariiq xaaraan khaldan bahayd waa gumaysiga dhulka haystay waa laga xoroobay wadanka dawladda qabsatay Soomaaliya oo loo dhanyahay dawladda dhexe loo jiray dawladda markay dhacdayna waxaa loo kala go'ay beesha la yahay daarood baa isla dhulkaas baa yeelatado iyada maamul ka samaysan iyadana iska leh marka hore niman horjooga ah oo anaga naga tirsan oo falaagoobay baa meesha keenay ee kuma soo galayso xoogna weliga ciidan xigaba qaadinba sida oo Muuse Biixi waxaan leeyahay dadka Soomaalida waxba ka dhaxeeya iyo islaamkaba dadka islaamka waxba ka dhaxeeya Soomaalida soo ilaalinaya dadkiisa oo ka dhashay oo reer Sheekh Isxaaq dhalinyarada meesha ku dhameeyay oo ku mariyo ku dabar gooyay inuu inta hadhay ka toojiyay meesha uu dabar gooynin waayo wadada la helnahay wadada Soomaaliya wadada muslimiina wadada dhalay weey inuu dabar gaama rabno anagu wixii laga dhinta waa mujaahidiin markay dhintaan jannada geliya sida Ilaahay sheegay wixii dhaawacmana Ilaahay waa booga leeyahay anagu dagaalka ku tala galay waana la kalifay oo jihaad baan ku jirnaa oo istifaacina oo wixii laga dhinta iyagu waa saxan yihiin mana dayno intuu waxdiyaana ka dhigo inta ka baxayaan meesha laakiin isagu meeshu xaq u lahayn buu ku dhameeyay reer Sheekh Isxaaq dhalinyaradii aan u helka ahayn oo isdalka ahayn oo muslimka ahaa oo Soomaalida ahaa waxaan leeyahay inta hadhay kala bax meesha si degdeg ah wala bax xuduudna adigu ma lihid Ingiriiska fariista ha qaadan gaalka waxa tagtaa meeshii koofil aan ku dilay anagoo dhulbaanto daraawiisha oo la garayo dulmidooba halka ciidankii halkaas adigu leedahay gaalku calaamadiyay inta wixii ka dambeeyay waxaan la hadlayaa reer Sheekh Isxaaq hadduu Muuse Biixi uu wixii xaq u lahayn wuxuu shaqo ku leen galay kaalintii isimada iyo kaalintii ugaasha iyo kaalintii garboodka iyo kaalintii culimada la marwanka ahayd waad qabteen waad kala hadli weydeen waad ku raacday waa ka qaban weydeen marada ka qaban weydeen waa kula jirtaan markaa weeye idana waxaan leeyahay kaalintina inta hadhay baaqi inta hadhay kala baxo kaalintina gabine qayliya hadda ka baxa meesha sagal waxaan markaa ku celinayaa inuu habeen madow dhuunto oo soo aan la ogeyn diyaarad la ballan wadanka ka baxo kabacdi reer Sheekh Isxaaq ay tashadaan la hadda cabrun buu ka hayaa intaas ku soo gabagabeynaya gudoomiyaha SLM warkiisii iyo guurtida iyo isimada reer Sheekh Isxaaq intaas ku soo gabagabeynaya waxaan u gudbayaa wala mar saddexaada
garaadada sharafta leh iyo cuqaashayada iyo guddida 3 baan u gudbayaa waxaan leeyahay kaalintiinni waad qaadatay waad buuxisay kaalintii ilaahay idiin dirsaday oo xaqa aan xadara ahayn waad qaadatay waa ka soo baxdeen aad iyo aad baan idin salaamayna 114 quraan kariimka salaan gaara leedihiin garaadada iyo cuqaasha iyo guddida 3 salaan gaara bay leeyihiin waa guulaysanay guushii u dambaysay maraynaa waxbayna guul nagama dhina gacantii wax ku haysanaa ilaahay bayna siiyey laguma faano guusha walaa xawla walaa quwwata illaa billaahi caliyyil cadiim baa la yidhaahdaa idana waxaan leeyahay halkaa ka sii haya hawsha go'aanka iyo talada fiicana gaadheen garaade iyo cuqaali iyo maxaa ku gudiyey halkaa ka sii haya ilaahay wayna guulinaya waa ina guulinaya waa guusha wayna sii dhammaanaysaa weliba intaasaan kaga baxaya taa garaadadayada iyo cuqaashayada iyo maxaa ku dhahay guddideeda qodobka afar wuxuu ii noqonayaa jamaahiirteeda meelay joogtaba ka soo dagaalamaya yurub 5 qaarad meel joogaba oo lacagta bixinaya dagaal buu ku jiraa waxaan leeyahay hawlka madaala weli waa hogadii lacagta iyo dhaqaalaha iyo maskaxda iyo taladaba halkaa la fadhiya waa ku mahadsantahay idinkuna kuwa joogaya jamaahiirta oo dagaalka jiidii hore ku jira waxaan leeyahay haysiila qaadashii samankii geesiga dalkiisa guusha u horseeda geerida dishaa geedka habbo ku gabraaratada gumaysigu wata gaalmada xumaanta geedkooda habbo idinku noocaas tihiin jamaahiir baa tihiin heesa fara badan oo la qaadaa jiro xilligii xabashada la qaadaa jiray hadda nimankan soo gudbay xabasha kama duwana mar haddii koobka islaamka jebiyeen xabasha waxba kama duwana jamaahiirta intaas ayna ku dhamaynaya meel kastoo la jooga waan ku jirnaa wadla joognaa shanta geeso maxaa ku dhahay daalo ku dego maanta halku daalo maanta mara maayo intaa waxaan kusoo dhamaynaya intaas waxaan ku darayaa oo kale nimankayga horjoogaha weli xaggaa sii eegaya waxaan leeyahay duwaagu marka neef laga rido dheeraar baa ka qabto weli meeshuu sii eegaa ilaa xabad lagala daalo meeshuu sii eegaa kuwii ugu horey xabad baa lagala daalay waa la kala firdhiyey waa la baaciyey waa la laayey waa dhinteen waa dhaawacmeen waa carareen baabuurta waa la qaqabtay inta la sii hadhay meel kasta jooga meel walba ka jooga soomaaliya iyo maxaa ku dhahay carra dhaalo ka jooga waxaan leeyahay intaan si dhinac baasha laydin gelin isdhiiba oo dadkii raaca baan idin leeyahay haddaad moodeen Soomaaliya irsaaqda bixiso ilaahay baa bixiya ilaahay isku xidha ilaahay u toobad keena oo ilaahay u noqda oo ilaahay isku xidha oo dheerarkeeda ka qomanaya cisado ka afdhaqda baad leeyahay waxa weeye waa nimanka weli xagga eegi Soomaaliya hadalkii waxaan soo gabagabeynaya salaantii islaamku marka waa ilaahay haddana salaantii ku noqonaya jibada yar jiilay dhammaan islaamku dhammaan salaamaya iyo jamaahiirta iyo garaadada iyo intii salaam xaq u lehba waxaan ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wixii islaama waa salaamayihiin salaanka bacdi waxaan salaamayaa garaadada guddiga 3 caaqilada jamaahiirtu meel kasta ay joogto dagaalka uu qaaday maanta dhulbahanta aan u kala soconayn iyo harti aad baan u soo dhaweynaynaa anagu musabixi waxba odhan mayno waa nin waalan weeye dadqalka aan waxba odhan maayo laakiin reer Isxaaq nimanka hantidoodii reer Sheekh Isxaaq nimanka hantidoodii iyo dadkoodii iyo naftoodiiba iyo dalkoodii ku been waayaga waxaan u gudbin lahaa nimankaas inay ka tashadaan musabixi oo iska qabtaan iyaguna waxaanay ku jiraan ka baxaan dhulbahanta iyo Isxaaq had bay leeyihiin hadka waxaad la yaqaano kiriyo weeye dulmadoobe halkii koofi lagu dilay weeye waxaan u sheegaynaa haddaanay ka bixin waxa ku jira in halkaasi xad noo noqonayso oo la isugu tegaya halkaa dib dambana aan riwaayad iyo hadal iyo waxbaynu isu nahay iyo dhalasho dambana aan la isugu imanay lagu kala fogaanayo baan nimankaana u diraynaa annana garab iyo gaashaanba waa la garab taaganaya dadka iyaga naf iyo maal waxaanu hayno biqina mayno wixii naga dhintay ilaahay u naxariisto wixii naga dhaawacmeen ilaahay ha u bogadhayo dagaalka waa wadaynaa waa ku jiraynaa intaasaan kaga baxaano bismillaahi raxmaani raxiim waxaan salaamaya wadda Soomaaliyeed meel kasta jooga wax islaam salaanka bacdi halkan waxaan ka hadlaynaa gudoomiyaha sare hadaladiisii wax kala ka hadli mayno sheekh xaana magacaama waa karaamaya waxba ka sheegi mayno halaa waxaan ku sheegaynaa ma jirto laakiin gudoomiyaha jaamada wata
جهمد دوّتها قالوا فترة كسر الريح يسوع وحاول هالليا وين أحكم شيء الكمالة تتكا بلك إلهي بالي إلهي كسكون قف بمل با إلهي كبار قف بمل با إلهي كبار إذن إلهي كسكون أنا جالس كله البهان تاري هرتي بالي دارود بالي وحاول هالليا وين أحكم شيء أنا دويد حمقني يا سوالي دلك السومالي الآن بالي ساسا عيدا قولي غادي إله بأود لأود بان سكاك صارينا أود بان سكاك صارينا هذا يتلقوطه وعلينا سكاك قبح أنت عيدك وحكاك سيهارسن كونوا ليه هذا الكوحب ذي المايو عن سلامة يا قدي ذا قرادة ذا قدي ذا شباهير في الميل كستبع يشوكتو ومدى دقالك كوغب قاضي كفعل قاضتي عن سلامة يا وحيد انتين إلهي هون عريست ينوى مهدسيه ninka nahaabka ah oo dhiig miiratada ah oo dalka uusan lahayn ku dhimanaya annagu ma rabno mana doonayno waxaanu nahay isisi daarood baanu nahay dhulbahantaanu nahay kuma rabno waran iyo xabad iyo gaashaan baanu ku haynaa daraawiish baanu nahay kuma doonayno kumana ahin waxaanahay kalcad baan joogaa taleex baan ka tirsanahay islaam baanahay guursiyada war kuma rabno xabadda wadahaanu kaaga soo saaraynaa kuma rabno kumana doonayno dalka iyagana malihid waxaa lagu haystaa sun baa lagu qooshayaa sun lagu qooshi may maqlaysaa daaroodoo dhan baan u tirinayaa daarood dhulbaantow jiican jabin ow jaliilad culus laguma jiirsiiyo meelaan jidka ahayn sararsame waa birey barkadna waa rasaas axmed garaad rayfa noqoyo la riixi waa madfaca yeedhayo maxamuud garaad miya markaadka waad ugu horrayseen maxaydin helay jamaamiirtoy wiqiinaha kala jajabin waa idin salaamayaa meelaad joogtaanba garaadada cuqaasha 3 ah ee guddida ah ee jamaamiirta gabdhaha heeganka ah meelaynu joognaba 4 saqaldho waa idin salaamayaa culamaa'idiinka cadowgeena allaha jabiyo innaguna aynu jamaamiirteena adkaysanno حاجبا حشيفو إنكنا تيننا وابرتيسنا وابيه اللهم صل على محمد وعلى السلام.